maalin wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan u diyaargarooba wararkeena maanta waa khamiis taariikhdu ay ku beeganta 7 Janaayo 2021 wararkeenana saaxiibyaalkooda ugu waaweyn waxaa qayb ka ah yuu ahaa bartilmaameedka qaraxii maanta ka dhacay wadada Cabdiqaasim ee Muqdisho faahfaahin ku saabsan qaraxaasi cidda lala dal lahaa khasaaraha ka dhashay iyo tirada dhimashada wararkii ugu dambeeyay xaaladda caasimada dagaalo culus oo xalay ka dhacay degmada Afgooye ee Shabeellaha Hoose iyo tirada dhimashadu aad u sii kordhaysa faahfaahin ku saabsan dagaalkaasi Cabdiraxmaan Cabdshakuur oo saddex ujeedo ka leh taageerada dhaqaale ee weydiistay dadka shacabka Jarnaal Galaal oo beesha Hawiye hal arin u weydiinaya gudoomiye Cabdi Xaashi Uganda waxay qarka u saaran tahay in ciidankeeda ay kala baxdo Soomaaliya barihii bulshada ee madaxweyne Trump oo la xanibay qodobadaasi kuba kale ayaana qayb ka wararkeena qayb ka noqo saaxiibada ku xiran channelkeena subscribe inoo dhig gambaleelkana taabo say kugu soo dhacaan muuqaalada warbixinada xogaha iyo sheekooyinka gaarka ah halkan aan ku baahino aynu ku bilaabnay uu ahaa bartilmaameedkii qaraxii maanta ka dhacay wadada Cabdiqaasim ee degmada Hodan ee gobolka Banaadir waxaa weli soo taraya macluumaadka laga leeyahay qarax aroornimadii hore ee saaka ka dhacay magaalada Muqdisho ciidamada dawladda gaar ahaan kuwa booliiska ayaana faahfaahin dheeriya ka bixiyay kadib howlgalo ay sameeyeen qarax ayaa wuxuu ka dhacay wadada Cabdiqaasim oo ku taala degmada Hodan ee gobolka Banaadir qaraxa oo haamiino waxaa lala eegtay sarkaal ka tirsan ciidanka asluubta xilligaasi maray agaarka dhisma u dhow ama dhismo ay ka guurtay safaaradda Qatar oo xindaabkaasi ku taala warar kala duwan ayaana ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay qaraxa oo waxyeelo dhimasho dhaawacba sababay gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada Hodan Cabdikaafi Yuusuf Nuur oo wariyaasha kula hadla goobta ayaa xaqiijiyay in qaraxaas uu ku dhintay ugu yaraan 4 qof 3 kalena ay ku dhaawacmeen oo ay ku jiraan askar ka mid ah ciidanka asluubta oo ilaalo u ahaa sarkaalka qaraxa lala beegsaday iyo sidoo kale wado mooto bajaaj leh oo halkaasi marayo isna qaraxaasi ku dhintay wadarta dhimashada ayuu gudoomiye ku-xigeenku sheegay in gaarayso 3 qof halka 4 kale ay dhaawacmeen oo ay u badan yihiin askarta ciidanka asluubta oo ilaalinaya sarkaalka mala huba ilaa hadda waxyeelada soo gaartay sarkaalka sidoo kale wuxuu intaa ku daray in dhaawacmeen tiro badan oo dad rayid ah iyo askartaba ay ku jiraan Cabdikaafi oo hadalkiisa sii wata ayaa shacabka ugu baaqay in ay iska taxadaraan bartilmaameedyada qaraxyada ah oo ay al-shabaab ay ku bartilmaameysanayaan maalmaha dambe wadooyinka caasimada qaraxyada la dhigayo Cabdikaafi waxa uu sheegay in bartilmaameedka qaraxu waa taliye ku-xigeenka ciidanka asluubta Jarnaal Mahad Cabdiraxmaan uu sheegay in halkaas uu maray waqtigii qaraxu dhacay gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ayaa sidoo kale sheegay in daqiiqadaha qaraxa intuusan dhicin ka hor ay halkaasi mareen kolonyo oo horkacayo ama kolonyo galbinaya taliyaha ciidanka asluubta Jarnaal Mahad Maxamed Cabdiraxmaan oo markii uu taliyaha gaarigiisa gudbay laakiin gaadiidka lagu saarayay taliye ku-xigeenka iyo saraakiil ciidanka booliis asluubta ah qaraxaas lala eegtay wuxuu sheegay dhammaanba saraakiisha ciidanka asluubta ay ka badbaadeen qaraxa wuxuuna ahaa qarax miinada wadada dhinaceeda la dhigay si kastaba sarkaalkii labaad ee ka badbaadaa isku day dil ayuu noqonayaa marka loo eego habeen hore ayuu sidoo kale qarax uu ka badbaaday afayeenka ciidanka booliiska xilli uu marayay wadada 22 Oktoobar ee degmada Waaberi ee gobolka Banaadir walow aan la shaacin burburka gaadiidka soo gaaray marka laga tago mas'uuliyiinta dawladda qodobada kale ee wararka ku jira ayaan daawadayaal u gudbi doonaa markan aan ku bilaabay Afgooye haddii aan eegno dagaalo culus ayaa halkaas ina la soo wareynaya inay ka dhaceen degmada Afgooye ee Shabeellaha Hoose warar kala duwan ayaa ka soo baxaya dagaal al-shabaab ee ciidanka dawladda xalay ay ku dagaalameen xaafado ka mid ah degmada Afgooye ee gobolkaasi Shabeellaha Hoose gaar ahaan ciidamada loo yaqaan Bangarafta weerarkan ayaa ahaa mid 3 jiha ah oo al-shabaab ay ku qaadeen kaasoo markii dambe isku bedelay dagaal toos ah oo dhaxmara ragga weerarka soo qaaday al-shabaab ka tirsan ay ciidanka dawladda ay ku sugnaa halkaasi dagaalyahanada al-shabaab ayaa weerarka ku ekeeyay 3 bar control ay ku sugnaayeen ciidanka dawladda karaan kuwa Bangarafta waxayna ku sugnaayeen aagaga Buundaweyn Mukiga iyo waliba Haanta Dheer oo dhammaantoodba Afgooye ka tirsan ila deegaanka ayaa sheegay in dagaalka uu qaatay saacad iyo wax ka badan ba halkaas ay isku adeegsanayeen hubka noocyadiisa kala duwan dhinacyada dagaalamaya ilaa hadda ma cadda khasaaraha rasmiga ay ka dhashay
weerarkaas iyo weliba dagaalka oo waqti badan socday. xaaladda ayaa saakay mid degan waxaana goobihii lagu diriiray ku sugan ciidamada xooga dalka oo dhaqdhaqaaqyo ka bilaabay magaalada Afgooye iyo duleedkeeda. inta badan dagaalyahanada kooxda Al-Shabaab ayaa waxay weerar gaadma ay ku qaadaan degmada Afgooye oo qiyaastii Muqdisho u jirta 30 kilomitir. Cabdiraxmaan Cabshakuur Warsame saddex ujeedo ayaa la sheegay inuu ka leeyahay taageerada dhaqaalaha ay weydiistay dadka shacabka ee ku nool caasimadda iyo guud ahaanba dalka oo dhan. hogaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabshakuur Warsame waa musharax madaxweyne ayaa shacabka Soomaaliyeed weydiistay in lagu tabaruco dhaqaale oo ku galo tartanka doorashada. muuqaal oo iska soo duubay Cabdiraxmaan Cabshakuur oo lagu baahiyay baraha bulshada ayuu ku sheegay in laga maarmaan ay tahay in la helo tartan haddii la galayo dhaqaale lagu galo doorashada si loogu maarmo gacmo shisheeye ayuu dalbaday in maalgelin lagu sameeyo oo dadka shacabka ah ay taageeraan xisbigiisa maadaama go'aankaasna uu qaatay sida uu yiri Cabdiraxmaan. dad badan ayaa isweydiinaya sababta Cabdiraxmaan Cabshakuur ku qasbaysa in taageero uu weydiisto bulshada Soomaaliyeed taas oo aan weli ka dhicin taariikhda Soomaaliya balse caadi ay ka tahay dunida marka loo eego dunida horumartay. hogaamiyaha wadajir ayaa la aaminsan yahay inuu tallaabadani ka damacsan yahay saddex ujeedo oo kala ah. kow, inuu asaga u weeciyo eedeymaha loo soo jeedinaya ee ah inay taageeraan dowlado shisheeye oo xiriir la leh Kenya iyo Imaaraadka Carabta kuwaasoo doonaya inuu iska baryeelo si uu muujiyo inuusan haysan taageero dowlado shisheeye oo markan wayso taageerada dadka shacabka. laba, inuu ku raadinayo magac isla markaana uu noqonayo siyaasiga ugu horeeya ee taageero dhaqaale weydiista shacabka asagoo musharax taas oo muujinaysa inuu yahay hogaamiye dad badan ay ku xiran yihiin. saddex, iyo inuu horumaro dhanka siyaasadda uu doonayo inuu ka sameeyo iyo qorshihiisa siyaasadeed si dadka daabacsan iyo kuwa kale ee ka shakisanba ay u aaminaan qorshaha siyaasadeed ee Cabdiraxmaan uu damacsan yahay. waxaana siyaasiyiin badan ay sheegayeen in qorshaha Cabdiraxmaan uu yahay mid uu ku doonayo in shacbiyad badan ku kasbado sida Maxamed Cabdilaahi Farmaajo oo 4 sano ka hor shacbiyad badan ugu lahaa dadka dhexdooda. saacadihii la soo dhaafay waxaa aad loo hadlayay baraha bulshada ee internetka goobaha ay ku wada kulmaan dadka caasimadda codeynta Cabdiraxmaan Cabshakuur ee dhaqaalaha uu weydiistay in uu tartanka ku galo. weli wararkeena ayaa la socotaan. General Galaal ayaa beelaha hawiye hal arin markan u weydiinaya gudoomiyaha aqalka sare ee dalka Cabdi Xaashi Cabdilaahi iyadoo generalkuna weerar afka oo ku qaaday hanaanka dowladda markan u wado. General Maxamed Nuur Galaal oo magaalada Muqdisho kaga qayb galay shir isku yimaadeen waxgaradka beelaha hawiye ayaa hadalkan ka jeediyay asoo dhowr talooyin u soo jeediyay gudoomiyaha aqalka sare dalka Cabdi Xaashi. General Galaal waxa uu waxgaradka beelaha hawiye ku bogaadiyay in xuquuqdooda ay raastaan sidoo kale loo soo jeediyay inay dhowraan xuquuqda walaalahooda asagoo si gaar ah ula dardaarmay gudoomiye Cabdi Xaashi. golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya waxaa gudoomiye ka ah nin la yiraahdo Cabdi Xaashi Cabdulaahi. ninkaas waa nin wadani ah aan isleeyahay waa nin aan hubo ayuu yiri General Galaal asagoo hadalkiisa sii wato. generaalka ayuu yiri sidaad ogtihiinba wuxuu ka dhashay ama uu ka soo jeeda gobolada waqooyi laakiin waqooyi kaliya uma eka nin u shaqeeya Cabdi Xaashi marka loo fiiriyo xanaankiisa siyaasadeed ayuu yiri hawiye haddaad tidin waxaan u baahannahay in Cabdi Xaashi si fiican aad ula shaqaysaan ayuu yiri in la ixtiraamo iyo waliba awood qaybsiga beelaha. sidoo kale General Galaal ayaa gudoomiye Cabdi Xaashi iyo waliba ku tilmaamay inuu nin rugcadaas siyaasadeed kuna baaqay in laba jibaaro dadaalada ku saabsan sidii marka la hoggaanka aqalka sare Cabdi Xaashi ugu soo noqon lahaa iyo inay taageeraan beelaha hawiye dhaqdhaqaaqa Cabdi Xaashi. waxaan aad ugu faraxsanahay in dad badan oo maanta diyaar u ah in midnimo la baadigoobo. waxaan arkaynaa in midnimada uu horkacaya Cabdi Xaashi ayuu yiri generaalka. waxa uu sheegay in ay muhiim ay tahay in la ilaaliyo midnimada Soomaaliya iyo Somaliland si midnimada loo helase dadkeena ka soo jeeda waqooyiga ee ku sugan caasimadda waa inaan ilaalinaa nidaamkooda awood qaybsiguna ay ka soo dhex muuqdaan hanaanka dowladnimo ayuu sii raaciyay General Galaal. waxaan maqlayaa madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi oo ka muuqda mid fikir xoog leh gelinaya in uu go'o hase yeeshee taasi suurtagal ma noqonayso ayuu yiri
jarnaalka. sidoo kale jarnaalka ayaa sheegay in madaxweynihii hore ee Somaliland Cigaal mar arintani wax laga weydiiyay ayuu yiri in uu diyaar u ahaa in mar kale dib u soo noqoto midnimada Soomaaliya, laakiin uu sheegay in uu aaminsan yahay in dhammaanba Somaliland ay u diyaarsan yihiin sidii mar kale loo heli lahaa midnimada koonfurta iyo waqooyiga. dowladda Uganda waxay qarka u saarantahay ciidankeeda ay kala baxdo Soomaaliya xilli dalkaas uu wajahayo marxalad doorasho. madaxweynaha dalkaas Uganda Yoweri Museveni ayaa si toos ah u sheegay in Soomaaliya kala soo bixi doono qaar ka mid ah ciidamadiisa ka howlgala gudaha dalka kuna howlgalaya magaca Midowga Afrika. Museveni ayaa sheegay inuu wajahayo xaalado adag oo u baahan in laga gudbo inta lagu guda jiro howlaha sugidda amniga doorashooyinka ee ka dhacaya gudaha Uganda 14 Janaayo. saas darteed laga maarmaan ay noqon doontaa inaan kala soo baxno ciidamadeena jooga Soomaaliya ayuu yiri. waxa uu sheegay in duruufo amni ay ku qasbtay in ay qaataan tallaabooyinkan ciidamada ay kala soo baxaan Soomaaliya, asagoo xusay in ciidamada sida gaarka ah u ilaalin doona amniga guud ee caasimadda Uganda ee Kampala ay noqon doonaan kuwa Soomaaliya laga keeni doono. xubnaha mucaaradka waxay ku hanjabeen inay gubayaan kaalmaha shidaalka ee Kampala, wuxuuna ka baqaya in rabshado ay sameeyaan. sidaas darteed waa inaan helnaa ciidamo badan oo ka hortaga rabshadaha ayuu yidhi Museveni. cabsi la xiriirta dhanka amniga ayaa dalkaas Uganda ka taagan kadib markii la sheegay in Museveni mar labaad uu doonayo inuu ku soo sharaxo tartanka doorashada. cabsida ugu weyn la xiriirta dhanka amniga ee Uganda ayaa timid wixii ka dambeeyay markii uu dhawaan ay dhaceen iska horimaadyo oo maalmo socday una dhaxeeyay taageerayaasha iyo mucaaradka kadib markii booliiskuna ay xireen musharax madaxweyne ee caanka ah ee mucaaradka ay kasoo horjeeda Museveni. dowladda Uganda ayaa dowladda ugu horeysay uguna badan ciidamo ee ka jooga Soomaaliya howlgalka loogu magac daray AMISOM iyagoo taageeraya dowladda federaalka Soomaaliya. madaxda ugu sareysa Midowga Afrika AMISOM ayaana ka hadlin go'aanka Uganda ee ciidamada kala baxayso Soomaaliya. goluhu waxa Midowga Afrika ay sheegayaan in ilaa 17,000 oo askar ah oo qayb ka ah Midowga Afrika ee Soomaaliya ku sugan kuwaas oo ka kala socda dalalka Uganda, Burundi, Djibouti, Kenya iyo Ethiopia ay qayb ka yihiin howlgalka ka soconaya Soomaaliya. hagaag daawadayaal wararkii ugu dambeeyay ee Mareykanka haddii aan eegno rabshado iyo Mareykanka ka soconaya waxaase la soo warinayna koonadii baraha bulshada la xanibay Trump oo Twitterka, Facebook xayiraad ayaa lagu soo rogay mana jirto falcelin badan oo laga sameyn karo muuqaalada iyo qoraalada lagu baahinayo baraha bogoga gaarka madaxweyne Trump. baraha bulshada caanka ah ee sida Twitterka iyo Facebook ayaa xanibaad la saaray kuwaas oo la arki karin fariimaha uu soo dhigay madaxweyne Trump aan laga falcelin karin iyadoo saacadihii ugu dambeeyay xanibaadda lagu soo rogay oo fariimaha la soo dhigay baraha Twitterka iyo Facebook dadku aysan reaction badan ka bixi karin. Trump ayaa laga joojiyay muddo 12 saacadood isticmaalka Twitterka kadib markii qoraal uu soo dhigay loo arkay kuwa kicin kara qalalaasaha xilli taageersan Trump ay weeran aqalka Congress-ka Mareykanka. madaxweynaha Mareykanka ayaa fariintiisa ugu dambeysay muuqaal ku yiri waa idin jeclahay, waxaan dareemayaa xanuunka dalkan uu ka jiro, waxaad u baahanahay inaan isbedel sameyno kuwaas oo loo arko kuwa laabla kicina dhibaatano ku ah hurinta colaadda Mareykanka. maamulka Twitterka ayaa bogga Trump ka dalbaday in laga saaro 3 muuqaal uu soo dhigay kuwaas oo la sheegay in ay kuwa laabla kicina dadkuna kicin kara. sidaas darteedna maamulka Twitterka ayaa la sheegay inay aqbaleen go'aanadaas guud ahaan ay hakiyeen Twitterka qoraalada uu soo dhigayo Trump inaysan noqon karin kuwa dadku falcelin badan ka bixiya. wuxuuna ku hanjabay shirkadda Twitterka Trump in tallaabo uu ka qaadi doono haddii xayiraadan ay sii saarnaato. dhanka kale Facebook ayaa asna muddo 24 saacadood xanibaad ku soo rogay akoonada Mr. Trump iyo YouTube-ka. sidoo kale muuqaalada YouTube-ka ayaa la sheegay in guud ahaanba la hakiyay. dhammaanba arrimahan ayaa waxaa loo sameynayaa in uusan Trump u adeegsan kicinta dadweynaha reer Mareykan ee hadda aad u kacsan. taageerayaasha Trump ayaa xalay galay aqalka ama xarunta Congress-ka waxayna isku dhaceen booliiska taasoo rabshado ay ka dhalatay. Trump ayaa muuqaalo iyo qoraallo soo dhigay Twitterka kuwaas oo loo arkay kuwa uu kaga faa'iideysanaya rabshadaha Mareykanka uu doonayo inuu sii kiciyo taageerayaashiisa. hagaag daawadayaal warbixinadan ayaa ugu waaweynaa wararkeenii maantana waan eeganta.